جنة دحدة السوق باكو يلا سوق الجمعة الليلة سوق أهل الجنة اسكو إيمان أيام برسولك يري فتهب عليهم ريح من قبل من الشمال ضبيل أي حقا كجا إيمان دون تدنا عبدح ضبيل شاسا وجهه كل فنيسا سورة دودي بيبدل حساب ونبي يقول كلر كدر كانوا بيبدل حساب أيكو كلر كي حافظة كجت سجين دركوجو كلر كي ماها وجهه كلر كي ماها أيكو سو نقول ينضمر كوجي حورا دودي حور العين تبا أوران دونتا ورمركاد سوق النوقب بحدين النقص النقطين دركيني وايس بدلي كلر كيني وايس سو بدلي واين السيدة مركاب يكون أوران يان والله أنك أنت نجم مغنين ولا نسيب بدلي نكنا سوق الدوية ده مركان تجنا محاك لا صار نقنا قروح مسافة الحمو بوس بعد كلا صار نقنا يا عولان يا سيجو يا دفور كاغا دف ما كم مغنى يا مركبة سوق الجنة ده كوي لنا قروح بعد لا صار نقنا قروح دركا قباليو بمايو دل يرنما دادو قبو بميسو متر يا برنا اللي كان ميسي ده واحد نقنا سدرك النبي آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء وصد متر بلغو قياسا ما قبو بيسد ما ديمان يسد ما بكون يسد ما باهن يسد بيت المي قل ميسد ما سيحان يسد دراري هبين واتسكع عياري وطوان إن شاء الله هذا قولوا إن شاء الله هواك الجنة نبينا كشكي عليه الصلاة والسلام نساء الجنة هواك الجنة مؤمنك الله قد دياريه ورسولك يري مد كمد إياك هواك الجنة مؤمنك الله قد دياريه مد كمد أبو نبي قولي هذه الدنيا أصو بحي لهاي وأدونك الله صو ساري لها وتقومك جلك كصو بحي أبو نبي قولي أيا سمد أيا عركس قبسن لها أبو رسولك يري gabadha muuminada ee jannada galaysa muuminka jannada loogu diyaariyay haday adduunyada u soo bixi lahayd oo dhool la cadeyn lahaydna iftiinka iligeyga ka soo baxa ayaa cadcada iftiinkeyga shiiqin lahaa buu rasuulku yiri xuura al-aynta kamida faryaradeeda yar buu nabigu yiri haday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nool oo dhan ba fitnoobi lahaayo biyuhu ka iman lahaayeen buu rasuulku yiri marada yare madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyada dhan waxa dulyada dhan ka khayr badan buu rasuulku yiri muuminku jannada markuu galana muraayad u baahan maaye xuura al-aynta dhuunteedu isku daawanaya markaas uu isku eegaya wajigeegu akhrisanaya waxa ku qoran nahnu raadiyatu fala naskhad annaku waxaan nahay kuwa ninkooga raalli ka ah oo waligood aanan cadhoonayn wa nahnu al-khalidatu fala namut annaku waxaan nahay kuwii waligood jannada ku waariyay ee dhimasho aanu saaxiib noqonayn wa nahnu an-naa'imatu fala nab'as annaku waxaan nahay kuwii alla u nicmeeyay balaayo iyo buus iyo dhibaato aanan arkayn tuuba liman kana lana wa kunna lahu kano ahadanin en annaku naxaasu noqona liibana bay leeyihiin ibn Abbas Allah raalli ka noqday isaga iyo abihiibe muuminka banka qiyaama kitaabkiisa gacanta midig marka laga siiyo waatan aayada quraanka ilaahay ku sheegay wa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura ehelkaagu kuwan adduunka aad ku haysato maaha ehelkan adduunyada aad ku haysato ibtilaa baa lagu siiyey ikhtibaar waa lagugu eegayaa inay ilaahay taacadiisa ku seejiyaan iyo inaad taacada ilaahay aad ku fulisid baa lagugu eegayaa laakiin ehelkaaga runtu waxa weeyaan waa ka maalinka qiyaamaha muuminka gacanta midig kitaabka marka laga siiyo ee xisaab yar oo fudud la xisaabiyo markaa buu u gadoomayaa baa ilaahay yidhi ehelkiisii oo sugaya ayuu xaggooga u noqonayaa buu ilaahay yidhi albaabka jannada ay joogaan ay ku sugayaan baa la yidhi albaabkay ku sugayaan kitaabkiisii buu gacanta midig ka qaatay xisaab fudud baa la fudaydiyey xisaab fudud waa maxay lama baadbaarin buuggiisii lama baadba haddii la baadbaaro waa khatar ilaahay baa asturay oo naxariistiisii buu huwiyey
addoon baa lala soo keliyoobi doonaa banka qiyaamo buu nebigu yidhi oo la odhan doonaa adiga rabbi baa kuu yeedhaye soo kac markaasaa ilaahay caza wajalla sitrigiisaa ilaahay huwini doonaa markaasuu ilaahay addoonka uu la hadlayaa hadalka addoonkiiyo rabbigiisa dhex maraya makhluuqu maqli maayaan malaa'igtu maqli maayaan muqarrabiintu maqli maayaan waa laga qarinayaa waxa uu ilaahay qirsiin doonaa dunuubtii adduunka dusheeda addoonkan uu ku qarsanayay baa ilaahay u sheegi doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkaygiyow dembigii caynkaas iyo caynkaa ahaa ee maalin heblaayo halka aad ku samayseen ma xasuusan tahay markaasuu leeyahay haa markaa buu ilaahay odhan doonaa adduunka dusheedana waan ku asturay maantana waa kuu dembi dhaafay kitaabkiisaa gacanta midig laga siinayaa deedna xagga iyo jannadu u ordaya markaas allah inaga dhigo kuwaas maydaan dembi lahayn muu inagu jiraa may macsuumiin ma nihin dembi uu naga dhacayaa laakiin naxariista ilaahay baa ballaadhan ilaahay naxariistiisaan rajaynaynaa mar walba ka quusan mayno dadkana ka quudin mayno naxariista ilaahay dadkana ka quusin mayno muuminka markaa kitaabkan la siiyo ehelkiisii buu ku noqonayaa ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa yidhi mid kasta oo kitaabka gacanta midig laga siiyey xawraadiisii baa iridda u taagan oo sugaysa markaa buu daymoonayaa daymashada oo keliya ayaa qaadanaysa la yidhi 70 sannadood caruuska habeenka ugu horreysay xaaskaaga lagu soo hooyo 20 daqiiqo saa ma u eegi kartaa waar maxaad naga eegi bay ku odhan indhahay faraha kaa gelin ya yani maba haleelaysid ba adduunka dusheeda 20 daqiiqo qurux intaa la egoo la eega dadka adduunka jooga ilaahay maba siinba fa maxaad u malayn gabadha 70 sano aad daawanaysid quruxdeeda iyo jamaalkeyga ibnu cabbaas wuxuu yidhi laakiin ayaa daawan doona ma taqaanaa waa ka adduunka intuu joogo maxaarimta indhihiisa ka laabta kaasaa xuurlacaynta daawashadeeda ku raaxaysan doona waqul lilmuuminiina yaguduu min absaarihim udaymoon saasuu u daymoon muuminku 70 sannadood tucaaniquhu wa yucaaniquha ku boodi marka iyadna way ku soo boodi mucaanaqada waa qoraqoraynta mucaanaqadoo keliya buuhi ibnu cabbaas haddana 70 sano kole haddana haysan buu sidaa unu haysan markuu jannadii arka naciimteedii 4 shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadamka nolosha ku qaraaraynaysay ayaa ahlal jannaha maskaxdooda ku soo dhici doona waa 4 waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bogtaantii 4 baa maskaxdooda ku soo dhici doonta ma naciimka intan la eg ayaa ilaahayna siiyey markaasay 4 xasuusanayaan baa la yidhi xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahlaljanna inna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada yaa ahlaljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima dhimasho dambe arki maysaan nicmad joogto ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn allah ina siiyo jannadaasaa ilaahay inoogu baaqayaa maalin walba oo lagu leeyahay salaada markaad tukanayso ee mu'adinku uu ku leeyahay xaya cala asalaax xaya cala alfalaax jannadaa ishorkeen jannadaa ku xisaabtan bishii rabadaan baa soo gashay jannadaa ishorkeen sadaqad baa bixi lagaa leeyahay jannadaa ishorkeen qur-aan baa lagu leeyahay kaale akhri jannadaa ishorkeen aakhira wax u bixi baa lagu leeyahay jannadaa ishorkeen